السلام عليكم رمضان مبارك أصحابي waxaan maanta idin wadaagayaa sharaxaadda film action Chinese oo la dhaho Iron Protect fadlan like saar ugu horeen muuqaalka si asxaab badan u gaaro haddii markii kugu horeysay ay tahay subscribe dheh channelkeena si aad muuqaaladeena xiga ula socotid gambalaalkana furo si aad u hesho fariinta markaan soo gelino haddaba daawo filmka oo taxadarna dagaalyahan ku takhasusay feerfaneedka casriga ah oo lagu magacaabo Wolin waa guuleystaha qabiil hore oo la dhaho Iron Fist wuxuu imaaday magaalo weyn markii ugu horeysay muddo sanada ah si kadisa koox burcad ah ayaa ciirsanaysa qof waxay dardareen cunug wadada ku sii jiray iyagoo ka riday jalaatadiisa Wolin si uu caawiyo ilmaha yar wuxuu daba kacay nimankii wuxuuna yimid goobtan xilli nimanku ay soo qabteen ninkii ay ciirsanayeen waxayna rabaan inay dilaan Wolin wuxuu weydiistay inay iska gudaan lacagta jalaatada ay soo daadiyeen ama ay soo gadaan mid cusub taa bedelkeedase waxay bilaabeen inay u gacan qaadaan isaguna dib uma laaban wuxuu meel saaray tobanaan kaligiis isagoo isticmaalaya xirfadda kung fu oo uu ku baabi'iyay dagaalka isagu waa qofka kaliya ay taagan dhanka kale ninka noloshiisa uu badbaadiyay waa ganacsade hantiila ah oo la dhaho Jia Shan wuxuu u soo taagay lacag laakiin wuu diiday inuu aqbalo wuxuu intaa kadib u noqday cunugii yara wuxuuna siiyay jalaato kale si kadisa gaariyaal badan ayaa soo istaagay dhinacyadiisa oo dhan hogaamiyaha dhinaca kale ayaa soo baxay oo laabta gelinaya Wolin waxaa soo baxday inay saaxiibo isku fiican yihiin labadooda isagu waa macallin kung fu ninka iska leh shirkad ilaalo oo caalami ah waxaana la dhahaa Jian Li Wolin iyo Jian waxaa soo tababaray hal macallin way soo wada koreen tababarna way soo wada qaateen koor inta uu Jian Li u wareegin magaalada si uu u horumariyo noloshiisa wuxuu helay lacag badan iyo magac intaba intii lagu guda jiray sanadihii tagay laakiin wuxuu hilmaamay macallinkii heerkaas inuu gaaray ka dambeeyay intay wada hadlayaan waxaan ogaanaynaa in Jian uu tuulada uga soo tagin rabitaankiisa wuxuu sameeyay qalad weyn intii lagu guda jiray isku day ay sameynayeen waxaana dibadda u saaray macallinkiisii macallinka wuxuu aaminsanaa had iyo jeer inuunan u qalmin inuu bartafanka xurmada leh sida kung fu markaa usoo noqona xilligan la joogo Wolin wuxuu soo bandhigay in macallinka uu xanuunsaday isagoo ogeysiinaya inuu geeriyooday Jian Li ooyin ayuu jabsanaya isagoo weli u haya jacayl macallinkiisii hore maalinta xigto waxay aadeen xarunta tababarka Jian Li inta lagu guda jiray baaritaanka amniga Wolin ayaa la weydiisanayaa kabihiisa inuu iska siibo waayo biro ay ka samaysan yihiin lama gudbi karo Jian Li uu garanayaa taariikhda ka dambeysa kabahaas sidaas darteeda inuu la galo ayuu ogolaanayaa isagoo iska bixin ganacsadaha Jia Shan la dhaho ayaa soo gaaray xagga Jian Li isagoo ka codsanaya inuu la dooro waardiyaha cusub ee inantiisa Jian Li ayaa tusinaya awoodda raggiisa qaar ka mid ah laakiin Jia Shan wuxuu xiiseynayaa inuu magacaabo Wolin iyadoo Wolin oo midan uu aqbalayo inuu qabto mid ka mid ah macallimiinta meesha ayaa dhahaya ilaaliyaha wuxuu sameyn doonaa wax kasta oo karaankiisa si uu u ilaaliyo loo shaqeeyaha subaxda xigtay Wolin wuxuu la kulmayaa gabadha badaraanka badan ee Jia Shan uu dhalay ee Feifei kulankii ugu horeeyay uma socon sidii la filayay iyadoo Feifei oo naxsan ee tulwaalkeeda riday iyadoo u malaynaysa inuu yahay nin tuug ah kadib markii ay ogaatay inuu yahay ilaaladeeda cusub waxay u soo bandhigtay lacag si uu uga tago kaligeeda si kastaba ha ahaatee Wolin waa u daacad shaqadiisa sidaas darteeda qadar yar oo lacag ah ma bedeli doonto go'aankiisa isku daygeedii ugu dambeeyay wuxuu noqday inuu qori ku taagto laakiin Wolin waxba kama soo qaadin dhammaadka maalintaasi waxay isku soo raaceen moolka Feifei si ka badbadisa ayay dhinac walba u wareegaysaa isagana ma ka haraynin oo meel walba ayuu daba socdaa dabadeed waxay aragtay koox qaswadayaal ah oo gabar dhibay iyadoo si kalsooni ay ku dheehan tahay xagga hogaamiyaha u aaday wejigana ka dharbaaxday marka ninku xanaaqo Wolin ayay ka been sheegtay iyo inuu isagu ahaa kii ka dalbaday inay sidaas sameeyso qaswadayaasha markay garaaci rabeen Wolin wuxuu u sheegay inuu garaneen Feifei wax la dhaho qorshaha iyada ayuu dib ka qaniinay markii ay aamineen isaga waxayna bilaabeen inay baacsadaan si ay cashir ugu dhigaan Wolin madadaalo ayay u ahayd arrintaas oo wuxuu iska daawanayaa siday nimanku u ciirsanayaan Feifei oo iyadana ay u wareegayso maalka oo dhan laakiin ugu dambeyntii waxa uu go'aansaday inuu caawiyo tuugta ayuu raaligelin inay bixiyaan ka dalbaday habeenkii marka la gaaray Wolin wuxuu ku riyooday aabihiisa oo ka tuuraya buur waxaa soo baxdayse waayo aragnimo la mid ah midaas inuu nolosha caadiga ahba ku haysto markaa dib ugu noqono markuu ahaa 7 sano jir aabihiisa oo ganacsade rabshado wada ahaa ayaa damcay inuu dilo isagoo ilaa hadda Wolin uusan garanayn sababta laakiin wuxuu xasuustaa aabihiisa inuu yiri kahor intuunan buurta ka tuurin guusha waxay u baahan tahay in wax qiimo badan aad bixiso kadib waxaana la barayaa nin burcad ah oo lagu magacaabo Master Fu wuxuu ahaan jiray shaqaaleeyaha Jia Shan laakiin hadda wuxuu si firfircooni ku jirto iskugu dayayaa inuu dilo isaga waayo Jia Shan wuxuu hayaa macluumaad ku saabsan
faldambiyeed kasta uu Fu qayb ka ahaa. Sidaas darteeda budcadu waxay doonaysaa inuu dhinto sida ugu dhaqsiyaha badan. Faalalowga uu aadka u aaminsan yahay ayaa u sheegaya in dhamaadka Fu uu dhow yahay, inkastoo ninka uu Fu uu la soo shaqeynayo dhowr iyo 10 sano haddana uu toogtay sababtoo ah malacawaal u shaqeynaynin ayuu u sheegay. Maalintii xigtay Wulin iyo Fefe waxay aadeen maqaayad qaali ah xilli gabadhu ay ku raaxaysanayso cunadeeda, halka Wulin uu garab taagan yahay oo ilaalinaya qof walba ee dhaqdhaqaaqiisa. Si lama filaan ah waxa uu miiska madaxa u saaray weytaradii, isagoo ku andacoonaya inay isku dayayso inay waxyeeleyso Fefe oo xanaaqsan ayaa ku carartay musqusha, laakiin Wulin ayaa ka soo dabagalay oo si xoog ay ku dheehan tahay dibadda ugu soo saaray. Markay gurigoodii ku noqonayeen jidka isku sii qabsadeen, haddana rag fara badan ayaa u yimid gargaarka Fefe iyadoo ay u maleynayaan in Wulin uu dhibaateynayo gabadha. Iyaduna waxay ka faa'iideysatay fursad ay ku cararto oo heshay, laakiin waxaa afduubanaya weytariyaashii hore ee ula soo kulantay xilli dareenka Wulin uu caddaaday inuu sax yahay, laakiin isagu ma haysto waqti ku filan oo ku dabaaldego oo si degdeg ah ayuu u daba orday gaariga. Kadib buundada ayuu kor kaga soo booday oo gaariga dushiisa ayuu ku dhacay, balse xoogaa kadib miisaankiisa ayaa lumay oo gaariga ayuu ka dhacay. Iskudaygiisa labaad kama soo boodi doono buundada dhankeeda ee si toos ah ayuu gaariga afka hore u wajahay. Markuu joojiyey wuxuu la dagaalamay afduubanayaashii wejiga xirnaa, wuxuuna awooday intaa kadib inuu la ordo Fefe. Markay soo gaareen guriga, Fefe waxay weydiisay sida uu ku ogaaday weytariyaashii inay ka mid ahaayeen afduubayaasha. Wulin wuxuu ugu jawaabay in naftiisa uu u tababaray si ay u ogaato dhaqdhaqaaqa aadanaha, wuxuuna u sheegay qofka inuu been sheegi karo, laakiin dhaqdhaqaaqa uu tusinayo sida ay u nugul yihiin, u faraxsan yihiin ama u ciishoonayaan. Fefe waxay u sheegtay inay soo yeelatay ilaaliyaal badan intii ay soo koraysay, oo marnaba ma yeelan sir iyo xornimo ay ku samayso waxa ay jeceshahay, taasoo ugu dambeyn keentay inay bilowdo inay nacdo dhammaan ilaalada, iyadoo hadalkeeda kusoo gabagabaysay in Wulin uunan u xumeyn sida kuwii hore ay ahaayeen oo kale. Inta aynan sariirta aadin, Fefe waxay fiirinaysaa sawirka qoyskeeda iyadoo la ooynaysa xasuusta hooyadeeda ee geeriyootay dhowaan. Dhanka kale, goob kale gaangisterka Fu la dhaho ayaa gacantiisa midig u soo diray Jiang Li. Ninka ayaa ka doonaya Jian inuu ka caawiyo dilka Jia Shan. Inkastoo Jian Li uu shaki kaga jira arrintan, haddana wuu aqbalayaa inuu caawiyo. Waxaa soo baxday in Jian markii ugu horeysay markuu magaalada soo galayay inuu Master Fu siiyey cunno kana caawiyey inuu ganacsi samaysto, iyadoo taa loogu bedelanayo in ilaalada uu tababaro uu gaangisterka ugu adeegto siduu doono. Haddana Jian Li abaalka lagu leeyahay inta inuu ku ekeen ayuu dareensan yahay, waxaana laga rabaa shaqadan inuu qabto. Maalinta xigto, Jian Li iyo Wulin waxay ku kulmayaan dhismaha qaybtiisa lagu leersado. Ugu horeyn Jian wuxuu ku faanayaa aqoonta uu leeyahay adduunka dhabta ah ee uunan garanaynin Wulin. Wuxuu ku fikirayaa inuu ka fiican yahay sababtoo ah wuxuu ku xiran yahay dad ay joogteeyaan xiriiro caalami ah. Wuxuu weydiistay inuu joojiyo ilaalinta Fefe. Wulin arrintan wuu ka diiday. Markii ugu horeysay noloshooda, walaalaha ayaa iska soo horjeestay. Jian Li wuxuu u caddeynayaa inuu weli ka xun yahay Wulin inuu helay kabihii qaaska ahaa oo isagu uunan helin. Tababaruhu wuxuu mar walba jeclaa Wulin, wuxuu aaminsanaa inuu ku dhashay isagoo dagaalyahan ah. Hadda taas darteeda waxay haystaan fursad, wuxuuna rabaa inuu tijaabiyo midkooda labadooda khatarsan. Waxay galeen dagaal feer ah, ma jirin mid ka adkaaday kan kale, maadaama awoodoodu ay isku dhigantay. Farsamada gacanta sixirka ayaa had iyo jeer ahayd takhasuska Jian Li. Isagoo isticmaalaya, Wulin ayuu laabta ka feeray oo gidaarka ku dhuftay. Dhammaadkii, Jian wuxuu u sheegayaa Wulin in walaalnimadooda halkan ay ku soo dhammaatay, wayna kala tageen. Dagaalkaas kadib, Wulin wuxuu u qaaday Fefe guri cidlo ah oo xeebta agteeda ah, iyagoo maalmahoodu ay ku qaadanayeen iyadoo si wada jir ah ee practice ugu sameynayaan kung fuga. Wulin wuxuu shaaca ka qaaday kabaha uu xiran yahay in mid kasta ay tahay 25 kiilo culeyskeeda, iyagoo ay ugu jireen 8 sano ee lasoo dhaafay. Wuxuuna isku dayayaa inuu gaaro farsamada lagu magacaabo The 108 Kicks marka kabahaas uu iska siibo, uuna kasii xoog badnaan doonaa siduu hadduu yahay. Intaa kadib, maalin Jian Li dadkiisa waxay soo ogaadeen halkay joogaan Wulin iyo Fefe, laakiin Jiang wuu ogsoon yahay ciidanka uu soo tababaray inaynan ku aadi karin Wulin. saa darteeda xargo inay maciin bidaan ayuu ugu talagalay, wuuna u dhiibay si dagaalka ay ugu soo guuleystaan. waxay soo weerareen habeenkii iyadoo ugu yaraan Wulin uu filan karay. lamaanaha waxay ku ordeen dhanka hoodka. xilli Wulin uu ku mashquulsanaa la dagaalanka ragga, ayay laba ka mid ah gaangistarada wateen Fefe iyagoo geeyey xaruntii laga soo abaabulayay. Wulin kama harin, uu soo daba kacay, laakiin nasiib darro lugtiisa xariga ayaa qabsaday oo ah dabintii loo dhigay. xilli uu qaadanayo waqti adag uu kula dagaalamayo, laakiin weli wuxuu hawada u dirayaa dhowr nin isagoo siinaya tartan adag. dhammaadka waxay xireen labadiisa lugood waxayna ku dhufteen derbi. markuu tabar beelo, nin ayaa u jiidaya barxad u dhow. Jian Li wuxuu arkaya walaalkiisii
hore oo la dhibtoonaya geerida, laakiin wuxuu kaga falcelinayaa caro, wuxuuna u tegayaa Wulin wuuna dilayaa isagoo feedhkii ugu dambeeyay laabta kaga dhuftay. Waxay ku aaseen god intaynan ku noqon saldhigoodii. Roob ayaa yimid oo si xoog badan u da'ay, taasoo ka dhigaysa godka bohol. Si lama filaan ah, Wulin ayaa kasoo gurgurtay isagoo muujinaya inuu weli nool yahay. Markuu dhalanayay, wadnihiisa wuxuu ku yaalay dhanka midig, sidaas darteeda feerkii lagu dhuftay waxba kuma noqon. wuxuuna haystaa dhiirigelin cusub. Wulin wuxuu ku noqday guriga, kabihii cuslaa ayuu iska siibay, kuwaasoo hortaagnaa inuu gaaro heerkiisa ugu sarreeya. Kadib wuxuu bedelayaa muuqaalkiisa, suud ayuuna soo xirtay ka hor intuusan soo gaarin xarunta tababarka ee Jian Li. Halkan waxaa ilaalinayso boqolaal askartiisa ka mid ah. Weerar ayay ku soo qaadeen, laakiin hadda oo uunan sidan kabihii 50 kiilo ahaa, Wulin lagama adkaan karo. Gacmaha keliya ayuu difaac ahaan u adeegsanayaa, wuxuuna la dulmarayaa lugihiisa isagoo daadinaya dhowr nin. Dhammaadkii isagu waa qofka keliya ay taagan. Dhacdada kadib wuxuu si kalsooni leh u galayaa qol ay ku jireen Master Fu, Jian Li, Fei Fei iyo Jia Shan. Fu ayaa weydiinaya haddii uunan ka baqayn dhimashada, taasoo Wulin uu kaga jawaabayo in guusha u baahanta allabari. Fu wuu naxay sababtoo ah wuxuu u sheegay wiilkiisa ka hor inta uusan dilin ereyadan. Dhowr sano ka hor, Fu iyo Jia Shan waxay u wada shaqaynayeen shuraaka ahaan, laakiin maalin ayaa waxaa dhacday in Fu uu khiyaanay Jia Shan, wuxuuna u gacan geliyay booliiska. Midaasna waxay sababtay dhimashada xaaskiisa. Laga soo bilaabo markaas, Jia Shan wuxuu doonayay inuu Fu ka argoosto. Dhanka kale, Fu aad ayuu u jeclaa wiilkiisa Wulin, ilaa hal maalin oo goobjoog u noqday Wulin oo xayawaan ku ceyrinayo indhihiisa oo qura. Funa wuxuu aaminay faalalowgiisa oo u sheegay in wiilkiisu yahay mid ka soo gabagabeyn doona noloshiisa. Taasna waxay ahayd sababta uu doonayay inuu u dilo Wulin. Wala uu cunug yar ahaa, Fu wuxuu ku qoslayaa waxa uu sameeyay inay ahaayeen wax saxan. Faalalowgana uu run sheegay. Wuxuu biskoolad ku taagayaa Wulin, laakiin waqtigan Jian Li ayaa joojiyay. Jian wuu ku daalay inuu u sacabutumo falka arxandarrada uu sameeyo Fu. Wuxuu sheeganayaa inuu doonayo inuu la dagaalamo Wulin, isla markaana fursad uu u siiyo ay ku tartamaan si loo ogaado ninkooda fiican ee gaara darajada 108 kiiska. Mar kale ay dagaalamayaan, iyadoo gacanta sare uu leeyahay bilowga Jian Li, maxaa yeelay gacmo gashiga cajiibka ah uu sito. Dagaalku markuu sii dhanaanaaday, Wulin wuxuu bilaabay in si tartiib inuu uga adkaanayo Jiang. Marka Jian Li ku dhawaado in laga guuleysto, Fu ayaa xabad ku dilaya. Marka uu sii qaadanayo neeftiisa ugu dambeysana, wuxuu Wulin ka codsanayaa inuu u sii noolaado si uu u ilaaliyo dhaxalka qabiilka Iron Fist oo hadda keliya ay ka soo hareen Wulin iyo Fu. Iyadoo Fu uu dhimashadiisa ka dhaxarkayo hortiisa, Fu wuxuu isku dayaa inuu ballanqaadyo u sameeyo Wulin, laakiin isku dayadaasi ayaa dhicisoobay. Wulin wuxuu diyaar u yahay inuu u dhameeyo, laakiin wuxuu go'aansanayaa sida kale. Mar walba si cadaalad ay ku dheehan tahay u dagaalami jiray, iyadoo dilka cadowgiisa ay ka soo horjeedo qaanuunka macalinka wax soo baray. Sidoo kale mana doonayo inuu hoos noqdo heerka Fu, sidaas darteeda wuxuu u ogolaanayaa inuu la noolaado ganacsigiisa burbursan. Muuqaalka u dambeeya waxaan aragnaa Wulin oo hawada ku firdhinayo dambaska Jian Li.